السلام عليكم ولا لهيجا وإذا حسيت إيجو حستين وكلته إن بدنا إذا كمدا ويسوعان وحيدهن أنت قاعدة أنت كبحضي مع فيديو ونقصو دوب ويسي مرك إن شاء الله ومشغولي مرك هذا عاو وحاربة نعم هي تلك عشرة كتسية عشرة سوا إيزي هذا معنتهاي دتك وين عرورته كل ويك هلي دونا إن شاء الله هذا وحن جرجرينا بصشي سليد وينوجو جرتا هل حبة بصلة basasha cadda ama tayeelowga si ay u taqaan majaalaha ah iyo hilib shiishiid oo nus kiilo ah kiilada halfkeed marka insha Allah waxa ka sameynaa homemade burger ka sameynaa okay waxa u baahan tahay easy way simple wallahi marka insha Allah waxa rajaynayaa kalina ka heli doontiin daawasho wanaagsan waxaan isku qalajinaynaa basasha iyo hilibka iyo saliid yareed aan ku dareynay marka inta isku darno hilibka intuu ka bislaanayo wax yar waan daboolaya marka cabaar daboolka kuma haynayo hadii cabaar uu daboolnaado biyo badan iyo dhala marka daboolku ina ka qaado wax yar markuu saarnaado si uu u bislaado uusan ceerin u noqonin marka wax yar kadib waan ka qaada daboolkii hadda waxaan ku darayaa wax yar oo cusbo ah qaandada ma aragtay oo shaaxiga wax yar halfgeed soo badeen cusbo yar dhadhanka waxay ku xiran tahay sida uu jeceshahay hadda waxaan ku dareynaa filfisha nooca madmadowga ah nooca madow aan isticmaalayaa marka hadii ay haysto ayada budo ah waa okay hadii ay haysto waxa rajeenaa inaad budo ka dhigatid hadda waxaan ku dareynaa mayonnaise waxa waa dhadhan uu sameeynaa aad marka waxaan ku hadaan sameeyo ciyaalkayga aad u jecel yihiin xaafada markaan sameeyo qof walba uu ka helo maasha Allah adinkana waxa rajeenaa inaad ka heli doontiin marka insha Allah daawasho wanaagsan hadda mayonnaise-kiin ku dareynaa marka mayonnaise ku dareysid waa mar uu hilibka bislaaday oo maxaan ku dhaxo u harsaneen oo inaad dajisid aragtid marka waxa kadib dabka waan ka xiraa marka mayonnaise-ka aan ku daro waan isgaargaarsiinaa meel walba oo ka gaarsiinaa mayonnaise-ka kadib waxaan sameynaynaa rootiga waxa soo iibsan kartaa nooca ma aragtay burger-ka loogu talagalay dhaxda laga geliyo kan hadda diyaarkii ah ma ahan waa ina aniga dhaxda ka dilaaciyo si maxay ahayd aan laba xabo uga dhisi maxay hadhow dhexda wax ku shubi karo cheese iyo hilibki marka waxa kadib dabkan ka dili doona insha Allah yar aan isku dhex daraya si uu hadhow macaan insha Allah dhadhan macaan u helo aad macaan marka insha Allah daawashana hadda rootigi waan soo waxaan ka dhigay laba jeex midkiiba si aan maxaan ku dhahaa hadda cheese-ka isticmaala noocan waaye waa u jeedin nooca jeceshaad samaysan kartaa isticmaali kartaa adiga laakiin aan hadda kana isticmaalaya kan waan saar markaan saaro maxaan ku dhahaa rootiga wuxuu ka kooban yahay 12 xabo marka 12 cheese aan saara oo slice ah cheese-ka oo diyaarka ah hadii aad haysan insha Allah midka ay isticmaali kartaa noocan inay kuma qasbanid midka adig guriga ku yaal isticmaal insha Allah marka xabad kasto rooti xabad cheese aan dul saaraya si maxay hadhow dhadhan fiican uu helo marka cheese-ki waan ku soo dhameeyay hadda marka waxaan saaraa hilibkii oo diyaar ah oo maxaan ku dhahaa sida aan sameynaa la socoteen aan dusha ka saaraa marka hilibka ku dhameeyo insha Allah on isgargaarsiyo dhinac walba hilibka aan ka saaro waxaan sameynayaa marka waxaan soo qaadanayaa cheese-ka oo mozzarella haddaad haysan cheese-ka haysta isticmaali kartaa any cheese haysatid isticmaali kartaa marka hadda wax yar kadib marka ku dhameynayaa wuxuu ku soo baxaa maasha Allah uma baahanaysid banaankiina oo doonatid marka cuntid waxa adiga guriga ku samaystay oo gacantaada ku samaystay wax ka macaan badan ma jiraan marka inaba caadi ma ahan waa casho aad u fiican ama qado marka hadda cheese-ki la gaaray waqtiga cheese-ki waa ujeedaan cheese-ka waa nooc oo vegetarian-ka ah oo maxaan ku dhahaa oo dadka qudaarta cuna ay isticmaali karaan oo fiican marka dusha uga daadina marka hadhow wuxuu noqonayaa maasha Allah ma bis dhayso banaanka u doon kuma qabanayso marka baratid mar walba waxa ay samaysan doontaa insha Allah haday qado noqoto haday casho noqoto inta waa ka dhigan kartaa marka insha Allah daawasho wanaagsan hadda waxaan dusha ka saaraa qaybta kale ee rootiga marka dusha ka saaro ku dhameynayna insha Allah hadda waxaan soo dhalaalinaa waxa waaye subag ama butter si u taqaanid wax yaraan ka soo goostay waan dhalaaliyay
dusha ka marmarinaa. dusha markaan ka marmariyo oon kusoo dhameeyo kadib waxaan dusha hadana ka saari doonaa insha Allah sisin yar si maxaan ku dhahaa sharaxaad yar ugu noqoto maasha Allah caraf miiran sisinta caraf ay siinaysaa iyo qurux si aan caadi ahayn oo kusoo bixi doona insha Allah markaan subagga ku dhameeyo markaa sisinta dusha uga daadinaya foornadan gelinaya ilaa 5 daqiiqo هذا سنتين كدرها إن شاء الله wax yaraan iyo yaraan kor uga daadinaya si macnaha ay qurux uga noqoto dadin fiican oo sameeyay caraf oo sameynaysa maxaan ku dhahaa sisinta marka foorno dabka aad ha u dheereenin hada foornada aad dabka u dheereysid umu dhaqsi u gubana isagoo maxaan ku dhahaa cheese ku dhalaalin marka aad ha u dheereen insha Allah marka 5 daqiiqo ilaa 30 daqiiqo foornada ku hayne aadna ha u dheereen dhexdhexaad ka dhig marka foornadan gelinayna hadda oo marka foornada gelino dabka aan ku gaabino uma dheereenin aad 5 daqiiqo ilaa 30 daqiiqo sa idin sheegay waxay ku xiran tahay foornada markaas aad haysatid maxaan ku dhahaa kuleelkeesu yahay hadda waan kana ka soo bixiyay foornadii ujeedii ma sha Allah qurux indhaha ka dhargeysa marka intaad dhadhamin waxa ku dhaca caadi ma carafta kaaga sii daran ma sha Allah marka waxaan ku dhahay ma soo kariyaan ku dhahay waaw ma sha Allah cheese soo noqdo ujeedin caadi ma ahan marka hadda waxa ku darsan kartaa kajab ama maxaan ku dhahaa wixii markaas ahaysid ama mayonnaise kaleete ama spicy wax macnaha oo wixii aad markaas guriga ku yaalo jecesha insha Allah marka waxaan rajeynaa inaad soo samaysiin haddii sida uu ku noqdo insha Allah xagga commentiga igu soo qor si aan ogaado inuu kugu soo baxay sida aan u sameeyo kaleete iyo inuu ka sii fiicnaaday iyo soo noqday insha Allah insha Allah waxaan idin soo wadaa fiidiyoyaal aad u badan marka oo kamid ah meelaha aan ka adeegto dukaamada aan ka adeegto maxaan ku dhahaa iyo waxyaabo badan aan idin soo wada insha Allah daawasho wanaagsan aad idin salaamaya guys marka sa igu